guddiga sirdoonka aqalka baarlamaanka ee wadanka Mareykanka ayaa warbixin ay siiyeen golaha sanadka ee baarlamaanka dalkaasi waxa ay kaga hadleen arrimaha ammaanka caalamka gaar ahaan khatarta ururo al-shabaab ay kamid tahay iyagoona sheegay in Soomaaliya ay hadda kamid tahay dalalka lagu jabiyay ururada xiriirka la leh al-Qaacida. guddigan ayaa warbixintooda ku sheegay in kastoo al-Qaacida ay awoodeeda ku fidisay dalalka dhaca qaaradda Afrika iyo Bariga Dhexe haddana ay muuqanayso in ay Soomaaliya iyo Yemen si weyn ugu jabeen. xarakada al-shabaab oo ku xiran ururweynaha al-Qaacida ayaa lagu jabiyay magaalooyin ka tirsan Soomaaliya kuwaas oo laga qabsaday waana guulaha waaweyn ee laga gaaray dagaalada lagula jiro al-Qaacida ayay guddigu ku sheegeen warbixintooda. agaasimaha hay'adda ammaanka qaranka Mareykanka James Clapper ayaa u sheegay golaha sanadka in Mareykanku uu dhaliilay dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka digay weeraro cusub oo ay al-shabaab qorsheynayso in ay ka fuliso gudaha dalkaasi Kenya. xarakada al-shabaab ayaa qorsheynaysa weeraro hor leh oo ay ka fuliso gudaha Kenya waxaana sidaas ka digay madaxa hay'adda sirdoonka qaranka ee dalkaasi Mareykanka James Clapper. waxa uuna intaasi raaciyay dalalka Bariga Afrika waxa ay ku dhibtoon doonaan in ay ilaaliyaan bartilmaameedyada kala duwan oo ay al-shabaab la beegsanayso wadamada ay ciidamadeedu ku sugan yihiin dalka Soomaaliya. dhinaca kale James Clapper ayaa si taxadar leh qiimeyn ugu sameeyay dawladda Soomaaliya isagoona dhaliilay hanaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sida uu dalka u hogaaminayo. hoggaanka liita ee madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa halis dheeri ah ku ah aaminaadda iyo wax ku oolnimada dawladda curdunka ah ee Soomaaliya. khilaaf siyaasadeed oo dhexdeeda ah hay'adaha aan sida wanaagsan u diyaarsaneen ee dawladda oo ay kamid yihiin tasiilaadka iyo maamul yarida ayuu yiri Mr. Clapper. hadalkani agaasimaha hay'adda ammaanka qaranka ee dalka Mareykanka James Clapper iyo qiimeyntiisa ku aadan dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saameyn weyn ku leh dawladdiisa waxaana ay noqon kartaa astaanta muujinaysa fikirka reer galbeedka ay ka haystaan dawladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Bilegeele, Somsat, magaalada Muqdisho.